kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta mudan oo caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo waqti walba oo idin tahay oo wacan halka aad nagala socotaan waa janarkiina siriicaad ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo garab istaagiina fadlan waa xusuusin xoog maahan haddii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay maalintii kugu horeysay aad nala kulanto subscribe saar kambaleelkana furo fiidiyogan haddii aad ka heshayna la garee oo sii share garee lana wadaag asxaabtaada si oo in badan ay u gaarto maanta muuqaalka aan idin hayo runtii waa muuqaal xiiso iyo xamaasadba wata runtii aad baan ugu farxaa markii aan arko muuqaalo qiimo badan oo inooga yimaado qof annaga inagu qiimo badan waana idinkugu soo degdegaa si aad u wada aragtaan ama aad ugu wada farxdaan sidaan anaguba ugu farxnay waxaan idin wadaa muuqaal oo soo duubay walaalkeen marna fanaankeenna marna saaxiibkeen maslax mideeye runtii maslax mideeye muuqaalkaasi markii aan arkay aad baan ugu farxay sababtoo waxaan dareenkayga oo dhan qaaday in uu ka baxayo iskaabulonimada waana idin sheegay qof walba oo Soomaaliyeed waxaan jeclahay in uu iskaabulonimada ka baxo inuu dhinaca guurka loo wada bato si ay dadkeena u noqdaan kuwa badan maadaama inta badan lagu tiriyo dadkeena yihiin kuwa aan tira ahaan aad u badnayn maslax mideey waxa uu soo bandhigay fiidiyo runtii qurux badan oo aniga isoo jiitay ana hubo inuu adigana ku soo jiidan doono gabadha waxa ay la joogtaa dalka Turkiga waxa laga yaabaa ujeedada koowaad ama blame eega oo u tagay Turkiga in ay ahayd in uu la kulmo xaajiyadiisa cusub oo daawaha soo saaran marka aad baan ugu farxay sidaas darteed ayaan jeclaystay inaan idinkula wadaago horta yaanan hadal idinku daalinin haddii aad moodaysay inaad anigu iska malaystayna maanta waad ila arki doontaa inay mala tahay iyo inay sax tahay ee bal daawasho wacan labadeenu waysku soo ilownayo jacayl buuxa xalaqaadno sidaan kuugu hagarbaxayba aadna ilaahaysaa sidaad soo wada daawateen walaalkeen waan ugu hambalyeynaa haddii ay bilowgii hore ee noloshiisa ay tahay sida ay ugu qurux badnaan lahaydna waxaan leenahay ilaa iyo dhamaadka Ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa inuu noqdo dhamaad aad u qurux badan oo aad ku riyaaqdid runtii saaxiibtinimada la sheegayo ma ahan oo kaliya in afka laga wada sheego markiiba waxa aan arkayay saaxiibkii Sharma Boy oo u soo hambalyeynay runtii saaxiibtinimada waa idin sheegay ma aha shay raqiis ah ama shay aanan macno guud aanan ku fadhinin waxaanan aaminsanahay in dadka markii ay saaxiibada yihiin si kasta ay u kala fogaadaan ama ay u kala fog yihiin in qaluubaha ay yihiin kuwa midaysan oo mar walbaba isku damqada ama xusuusta waxaynu markaan loo baahan yahay annaga oo dhan ma ahan hal qof ma ahan laba qof annaga oo dhan isku daya gacanta wax badan maaha inaad u hambalyeysaan janaalka waa ay ku xeeran yihiin ragga aan mar walbaba ku soo qaadan waa Sharma Boy iyo maslax mideeye marka si ay iyagana ay u arkaan inta aan annaga u qabno mar walba waxaan jeclahay inaan ismuujinaa oo aan tusinaa heerka ay inoo taagan yihiin iyo meesha ay naga filan karaan markii ay u baahdaan ama aan iyaga ka soo hadalno marka waxaad u soo qoraysaa hambalyo u soo qoro wax weyn maaha lacag kaaga bixi mayso hambalyo u soo qoro fiidiyogana inaad share gareysiin ayaan rajaynayaa haddaba maslax mideeye markii oo arrinkiisaas ay u suurto gasho kadib maxay tahay baleemka u xigo ama baleemka ugu weyn oo ku fikirayo sida wararka qaar ay sheegayaan maslax mideeye iyo Sharma Boy iyo malyumaanka waxa lagu wadaa inay ku kulmaan ama isugu tagaan sida ay garow ugu wada kulmeen oo kale dalka Turkiga inay wada tagi doonaan ayay hadalka u badan yahay oo sidaas ayaa la hadal hayaa waxaan rajaynaynaa in ay Ilaahay dhab uga dhigo ay meesha ku wada kulmaan waayo dadka markii ay aad isu fahmaan waxa qurux badan inay meel ku wada noolaadaan laakiin adduunyada ayaana taa ogolaanaynin oo ku saamaxayna sababta oo ah
midda aan anaga rabno inta badan wax dhici kara ma ahan ee midda dhacda waa midda uu Ilaahay rabo marka dadka waa ay isbaranayaan waa la isdhaxgalayaa hadan waa la kala fogaanayaa taasina waa marxaladaha adduunyada ay u abuuran tahay oo marba nooc ayay ku soo wajahaysaa sida ay u soo wajahdayna waa aragtay iyaga oo wada jooga Garowe oo farxad wada haysta oo san maslax mideeye dalka uu ka soo jeedo ama meesha uu ku dhashay aanan wax niyada u haynin ayaa waxa soo baxay safar degdeg ah oo Sharma Boy oo ku aaday dalka Zambia intaasi kadib waayaha waxa uu hadana mar labaad saaciday in ay baxaan ama uu baxo ama ay baxdo malyuumaanka ay ka daw baxdo hadda sida aan ognahay waxa ku dambeeyo Garowe deeq darajo iyo xaajiyadiisa iyagana waxa rajaynayaa in ay bixi doonaan oo iyaga oo asxaab isku dhan ah oo sidii hore ah oo shaxshaxdii hore wata ayaa rajaynaya in ay ku wada kulmaan dalka Turkiga waana arinta ugu weyn oo la wada sugayo waxaana rajaynaya in ay mar waliba meel dad ku wada nool dad jacaylkii iyo wada socoshadii iyo fiidiyoyadii quruxda badnaa ee inoo soo duubi jireen inoo soo duuba in ay noqdaan ay dib u noqdaan ayaa rajaynaya rajooyin badan ayaa jirto iyo waxyaabo badan oo aad loo hadal hayo sida in ay heeso qurux badan ay soo wadaan maslax mideeye iyo Sharma Boy waxaanu mar walbana rajaynaya in anaga xageena dhinaca wanaaga aanu badan doono in aan wax walba aan wanaajin doono in aan wax walbana aan wanaag u arki doono in aan mar walba wanaaga dhiirigelin doono mar walba aan sameyn doono waxyaabo anfac anaga inoo leh dadka walaalaheena qulubtooda dhisi karo yaani hadii aan maanta adiga qulubtaada aan jibiyo kulli wax iga soo galayo ama aan faa'iido aan ka helayo ma jirto sidaas darteed marka inta aan qulubtaada aan dhaawici lahaa waxa ii qeyr badan in aan wanaagaaga ka hadlo in aan waxa aad tahay aan ka hadlo halka yoolka aad ku leedahay ama aad u socoto in aan kugu dhiirigeliyo in aan ku dhaho keep going horay u soco hadii aan kari karo aan ku gaarsiin karo aan codkayga ilaa iyo meesha aad u socod kuula gaari karo wax dhiba oo aniga markaas ii muuqdo malahan waxaan rajaynayaa mar walba inaan isriixno inaan dhabarka iska taagnaano in aan hore u wada socono si aan horumar u wada gaarno marka hadii aan aniga aan wanaagaaga ka taliyo waxa hubaal ah in aniga wanaagayga aan gaari doono in aan gaari doono yoolka aan leeyahay in aan gaari doono marka waxaan rajaynayaa fiidiyogan maadaama aan ugu talagalnay walaalkeen maslax mideeye idinkana mar labaad ayaan idin xasuusin doonaa ismoojiya reer Siriyaad dad fara badan ayaa tiin dad miisaan leh ayaa tiin dad mugla ayaa tiin dad qiimo badan ayaa tiin dad wadaniyada ay ku weynta ayaa tiin dad qabiil aanan aqoon ayaa tiin waxaas oo dhan ba aniga ayaa marxaati idinkaga ah Ilaahay ka sokow marka waxaan rajaynayaa wanaagiina in aad muujisaan in aadan wanaaga aadan la qarsan ama aadan qarsanin adigoo u muujin karo walaalka u hambaliyay waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay ku guuleeyo sida ay rabaan Ilaahay inuu u sahlo in ay noqdaan dad midaysan oo guri ko soo wada toosa ayaan rajaynayaa sida aan u sugayno in Sharma Boy ilmihiisa aan adeer iyo eedo iyo abti iyo u noqono ayaan rajaynayaa isagana sidoo kale inaan ugu noqon doono abti iyo adeer iyo eedo iyo waxyaabaha la mid ah aad baad u mahadsantiin dhammaan reer Siriyaad caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo sharaf ku noolaada meel walba aad tihiinba waxaan rajaynayaa muuqaalkan mid xigeentaa ku kulmi doono waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillahi saarag dambe oo xiiso badan